habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin wafdigii ugu horeeyay ee ka socda dawladda Eritrea tan iyo markii ay madax banaanida ka qaadatay Ethiopia ayaa maanta tagay Soomaaliya waxaanu eegi doonaa saamaynta ay ku yeelan karto booqashadani xiriirka labada wadan wararka kale ee caawana waxa kamid ah lacagta liiraha ee Turkiga ayaa si qiimo dhacaysa iyadoo oo gaartay meeshii ugu hooseysay bangiga dhexe ayaa sheegay inay diyaar u yihiin talaabo kasta oo lagu ilaalinayo deganaanshaha dhaqaalaha dumarka magaalo yar oo ku taala waqooyiga Tanzania oo cabsi ay soo wajahday kadib markii ay dhaceen dilal la xiriiray sixirka Halima Aadan waxay xayeysiisaa dharka iyada oo xijaaban waxay dib ugu noqotay xerada Kaakuma oo ay ku noolaan jirtay gabadhan Soomaalida ah kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea ayaa saaka tagay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa garoonka Muqdisho ku soo dhaweeyay waana markii ugu horeysay ee madax ka socota Eritrea ay booqato Soomaaliya tan iyo intii dalkani uu madax banaanida ka helay Ethiopia oo uu ku biiray qaramada midoobay sanadkii 1993 Eritrea waxa hore lagu eedeyn jiray in ay gacan military ay siiso kooxda Al-Shabaab ee la dagaalanta dawladda Soomaaliya si kastaba ahaatee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqday damaadkii bishii hore magaalada Asmara isagoo heshiis lagu hagaajinayay xiriirka labada dal la saxiixday dhigiisa wadankaasi madaxweyne Isaias Afwerki haddaba xiriirka cusub ee labada dal ayaa siyaabo kala duwan looga falceliyay waxaana Djibouti oo ka hadashay ay tiri jamhuuriyadda Djibouti si weyn ayuu u dhibay hadalkii madaxweyne Farmaajo ee ahaa in xayiraadda hubka laga qaado wadanka Eritrea haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ka hadlay sababta wafdigani Muqdisho ay u yimaadeen wafdigu wuxuu ka kooban yahay wasiirka arrimaha dibadda Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha waxay u yimaadeen in iyagoo ka jawaabaya socdaalkii dhawaan uu madaxweynuhu ku tagay dalka Eritrea ayay goosteen in dhaqso uga soo jawaabaan muhiimadda waxaan baarsan yahay waxa weeye in la xoojiyo xiriirka labada dal ee walaalaha ka dhaxeeya goorweed ayaan haddaba waxaan la hadlay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ah nin ka faalooda arrimaha geeska si arintani uu xogo yiraahdo Soomaaliya wadamada diriskeeda iyo adduunyada oo dhan inay calaaqaad la samaysato oo ayna soo booqdaan oo aan booqano waa qayb kamida adeega iyo farsamo wanaagga dawladnimada Eritrea weligeed ma cadaysan oo si cad uma ayna dhihin waxay taageertaa Al-Shabaab laakiin waxyaabaha lagu eedeeyay waxa kamid ah markii la saarayo cunaqabateynta inay Al-Shabaabna taageerto isla markaasna ay duulaan ku ahayd qarnimada Djibouti saas ayaa lagu saaray cunaqabateynta marka hadda ma sheegi karno oo ma dhihi karno taageero ay siinaysa hadii waayaan ayaa Al-Shabaab laga adkaana ama waa adkaanayaan ma dhihi karno taas waxaan u kaadina waqtigan sugayna geeska Afrika waxa ka socda isbedelaas waxay leeyihiin istaraatiijiyada kala duwan ay leeyihiin anigu waxaan qabaa inay soo socoto cabsi siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibadda asal ahaanba waxay ku socotaa wado aan sax ahayn oo aan lagu sameeynin wax akhris ama diraasad waa tahay haddaynu u gudubno dhinaca kale madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay Mareykanka in ay dhabarka midi ay kaga galiyeen dalkiisa oo la ahaa saaxiib dhow xiisadan diblomaasiyadeed ayaa imanaysa iyadoo lacagta liiraha ee wadanka Turkiga ay aad hoos ugu dhacday boqolkiiba 40 sanadkan oo kaliya 2018 hoos u dhac ayaa ku yimid waxaase la soo saaray barnaamij dhaqaale oo cusub maanta kumana aanu soo celin kalsoonidii loo baahnaa dhinaca suuqyada dawladda waxa kale oo ay ku eedeysay baraha bulshada inay mas'uul ka yihiin hoos u dhaca qiimaha lacagta maanta ayaa afayeenka madaxweynaha Turkiga Ibrahim Kalin waxa uu ka digay in arintani ay dhibaato tahay waxaana uu yiri wararka mala awaalka ah ama ficilada arintani waxa ay noqonaysaa buu yiri talaabooyinkii loo baahnaa in la sameeyo si markaasi dhaqaalaha wadanka loo dejiyo haddaba
haddaynu eegno wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay sheegaysaa inay qaadayso tallaabooyin sharciga oo markaasi wax looga qabanayo 346 barood oo kuwa bulshada ah oo loo haysto inay lacagta ay hoos u dhigeen si daandaansi ku dhisan tafaasiisha warkaasi waxaa noo haya cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir madaxweynaha Turkiga ayaa ku adkaystay mowqifkiisii shalay maruu hadlayay isagoo u sheegay taageerayaashiisu in lacagta hoos u dhacday Turkigu ay tahay shirqool siyaasadeed iyadoo xaaladdu taagan tahay ayaa uu u door xulay dawladda Mareykanka oo ay ku wada jiraan NATO jawaabteenna kuwa caalamka ku haya dagaalka dhaqaale ee dalkeenna uu ka mid yahay waxa weeye waxaynu helaynaa suuqyo cusub iyo xulafo cusub inkastoo uu khudbado adag jeedinayay haddana hoos u dhaca lacagta liiruhu way sii socotay iyadoo 40% dhacday sanadkan marka loo eego dollarka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka ayaa isagu labalaabay cashuurta birta iyo aluminiyumka taas oo keentay in liiruhu 20% maalin qura dhulka galo cilaaqaadka labada dhinac ayaan fiicnayn tan iyo markii inqilaabku dhicisoobay 2016 kaasi oo la rabay in Erdogan xukunka lagaga tuuro waana ninkan ka labada dal u horseeday xurgufta cusub Turkiga ayaa taxaabay baadarigan Mareykanka ah Andrew Brunson oo looga shakiyay inuu ku lug lahaa inqilaabkaasi dhicisoobay iyadoo Mareykankuna rabaan in la sii daayo ayaa madaxweyne Erdogan uu ka goos adeegay waxay yiraahdeen baadariga sii daaya waxayna noo qabteen 6 gelinka dambe ee Arbacada waxayna yiraahdeen haddii aan la sii dayn waan cunaqabatayn doonaa dadka caadiga ah Turkiga ayaa hadaba xiisada socota waxay maciishadoodii ka dhigtay qaali iyadoo lacagtii u kaydsaneedna ay qiimo beeshay ganacsatada yaryar ee Turkiga ayaa ka baqaya in hoos u dhaca lacagtu uu horseedi karo in dhaqaaluhu galo xaalad cakiran wasiirka maaliyadda ayaa sheegay inay dejiyeen qorshe caawinaya bangiyada iyo ganacsatada dhexe iyo kuwa yaryarba Berat Albayrak ayaa inta raaciyay inuu maanta soo bandhigay qorshihiisaasi dadka Turkiga ayaa rajeynaya inuu dejin doono xaaladda suuqyada isla markaana uu baritaari doono lacagta liiraha ee hoos u sii dhacaysa bal markaan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka dunida ee maanta tobanaan qof ayaa weli la yahay kadib markii uu qarax ka dhacay saldhig hub oo ku yaala Suuriya wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in 67 qof oo ay ku jiraan 12 caruur lagu dilay gobolka Idlib oo intiisa badan gacanta ay ku hayaan mucaaradka qaraxa ayaa dhulka soo dhigay dhisme lagu hayay hubka oo ay lahaayeen dad hubka soo galiya dalkaasi madaxweynaha Tunisia ayaa soo jeediyay sharci baarlamaanka la hordhigay oo ah in dhaxalka ay u sinaadaan ragga iyo dumarka si kastaba ahaatee sharcigan madaxweyne Essebsi uu soo bandhigay ayaa u muuqda mid la diidan yahay laakiin wuxuu fursad u siinayaa qoysaska inay sharciga isticmaali karaan islaamka haddii ay doonaan inta aan loo codayn waxa looga doodayaa baarlamaanka codadka ayaa la tirinayaa wareegii labaad ee doorashada madaxweynaha Mali codaynta oo dhacday shalay ayaa la sheegayaa in ay dadkii ugu yaraa isugu soo baxeen inkasta oo ammaanka la xoojiyay madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita ayaa waxa la filayaa in uu guuleysto mar labaad natiijadana waxa la dhowrayaa bisha maalinta Jimcaha dagaalka Afghanistan waxa uu socday in ka badan 17 sanadood haddaba warbixintaasi waxaa inoo haysa Aisha Afrax oo iminka stuudiyaha ila joogta Aisha mahadsanid farxaan waxaa jiro dadaalo sii badanaya oo la xiriira sidii lagu xalin lahaa dagaalkan 17 sano ka soo socday Afghanistan diblomaasi sare oo Mareykanka ka socda ayaa markii ugu horeysay wada hadallo toos ah la yeelanaya Taliban balse ururkan ayaa wali dhul badan maamula oo dalkaasi ka mid ah waatan warbixinta boorka iyo kuleelka Helmand halkan waa goob lagu dilay boqolaal askari oo British ah waxayna ku dhawaatay inay ku dhacdo gacanta Taliban ciidamada Britain ayaa gabi ahaanba ka baxay 4 sano ka hor laakiin askarta Mareykanka ayaa tartiib u soo noqonayay kaligood ayay hadda ku yihiin waxayna ilaalinayaan saldhiggii hore ee askarta Britain ee Camp Bastion waxay ahayd muhiim inaan ku soo laabano halkan 2 sano ka hor haddii aynan soo noqon lahayn waxaan filayaa in gobolka Helmand uu si buuxda ugu jiri lahaa gacanta Taliban ciidamada Mareykanka waxay habeenkii daaraan raadaaro ay ku ogaanayaan weerarada waxaa kaloo ay hoobiyaal ku tuuraan xarumaha uu cadowgoodu joogo maalintiina waxay kormeeraan tababarka ciidamada Afgaaniyiinta ah kuwaasoo u baahan caawinaad badan
cutubkooduna uu hore u soo gaaray khasaare culus. aasaaska cududda ciidanka iyo howlgalkuba hadda waa 30%. soo arrin laga walwala ma aha. haa laakiin wakhti ayaan haysanaa, wakhti diiwaangelin iyo wacyigelin lagu samayn karo, hoggaankana uu xaaladda ku wanaajiyo. BBC-da ayaa raacday ciidamada Afghanistan oo kormeeraya wadada weyn ee Helmand, taasoo badanaa ay kala kulmaan qaraxyo ay Taliban kula beegsato. laakiin ciidamadan ayaa u muuqda kuwo ku mashquulsan waxyaabo kale. weli uma muuqdaan sidii askar dhisan. waxay qaadanaysaa wakhti, waxaanay u baahan tahay dadaal joogto ah maadaama aan hore ugu sii soconno xagga tababarrada. ma jirto qof ka hadlaya in maalinkan maanta guul dagaalka laga gaaray, laakiin guushu hadda waxa weeye in la helo heshiis siyaasadeed, waana tan loo baahan yahay in ka badan sidii hore in loogu dadaalo. xabad joojin 3 maalmood ah oo dhawaan bilaabatay ayaa rajo abuurtay. waxaa xigaya wadahadallo u dhaxayn doona Mareykanka iyo Taliban, balse weli ma jiro hanaan nabadeed. ciidamadan Afghanistanna weli uma muuqato inuu dhammaanayo dagaalkan dheer ee 17 sano soo socday. mar walba waxaad naga daawan kartaan boggayaga BBC Somali Facebook. fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo, falanqayn iyo warar dheeraada oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee BBC News Somali. weli waxay noo soo socda oo aad maqli doontaan dumarka magaalo yar oo ku taala waqooyiga Tanzania oo cabsi soo wajahday. weli waxaad daawanaysaa barnaamijka caawiya caalamka ee BBC Somali. balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. wafdigii ugu horeeyay ee ka socda dowladda Eritrea tan iyo markii ay madax bannaanida ka qaadatay Ethiopia ayaa maanta tagay Soomaaliya. Halima Aadan oo xayisiisa dharka iyada oo xijaaban waxay dib ugu noqotay xerada Kakuma oo ay ku soo kortay. cabsi ayaa ka taagan magaalo yar oo ku taala waqooyiga Tanzania kadib dilal isxigay iyo weliba kufsi, jirdil iyo dumar si gaara loo bartilmaameedsanayay. in ka badan 8 kiis ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ka dhacay halkaasi. waxaa lala eegtaa dumarka keligood socda iyo kuwa beeraha ku soo daaha. Axmed Xaaji Xasan ayaa ka waramaya. way isla noolaayeen, dhaqaale ahaanna hooyadeed ayay ku tiirsaneed Saara, waxaana la dilay maalmo ka hor intuusan cunugeeda saddexaad dhalan. xanuun ayay igu tahay dhimashada hooyaday. waxay ahayd qof aan ku tiirsanahay oo muhiim u ah noloshayda. ilaa iyo hadda ma aaminin inay dhimatay. ilaa iyo haddana ma fahmin sababtay iyada ugu dhacday. waxaan dareemayaa inaan maskaxda beeli rabo. sidoo kale waxa ay sheegaysaa inay ka murugaysan tahay in gabadheeda ay korayso ayadoon arag ayaydeed. halkan waa meesha laga helay meydka Ruth, iyadoo dharka laga siibay lana ceejiyey. meydad kale ayaa laga helay meel dhowr mitir u jirta halkan dhinaca wadadan weyn. tacadiyada noocan ah waxa ay sababeen su'aalo badan. jawaab marka la raadiyana dadka deegaanka waxa ay ku xirayaan aaminsanaanta sixirka. balse warbixinada caafimaadka waxa ay muujinayaan in kufsiga uu yahay waxa ay ka siman yihiin dhibanayaasha oo dhan. markii aan eegno kiisaska wax ayay ka siman yihiin. kiiskii ugu horreeyay ee nala soo gaarsiiyey wuxuu la mid yahay kii ugu dambeeyey. waxaan ogaanay in la garaacay lana kufsaday. ilaa 8 kiis ayaa la soo wariyey dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey, balse dad badan waxa ay aaminsan yihiin in tirada ay intaa ka badan tahay. waxay sheegayaan in dadka lagu ceebeeyo kufsiga sababo la xiriira xuquuq dumarka ku adkayn kara in la guursado ama la furo kuwa la qabo. booliska halkan way beeninayaan in arrintan ay dheeraad ku tahay dhibaatadii horey u jirtay, balse waxa ay sheegayaan in amniga hareeraha magaalada ay adkeeyeen. waxaanu bulshada u diyaarinaynaa inay raacaan xeerka u yaala bulshada ee ku saabsan arrimahan. waxaanu diyaarinay oo aanu samaynay rug booliska ah oo casri ah markaasi oo halkan laga dhisayo. askar badanna waa la keenay nawaaxiga si dhacdooyinkan oo kale aanay dib ugu soo noqon. Ruth waxaa lagu aasay beerta ay qoyskeeda leeyihiin, balse kuwa ay jeceshahay ay ka dhimatay
si la mid ah qoysaska dhibanayaasha kale weli waxa ay sugayaan inay cadaalad helaan hadda dumar badan waxa ay aaminsan yihiin inay xoogaa kalsooni heleen kadib markii geeridii Ruth ay soo saartay dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ee Mtuwa Umbu. toddobaadkan waxaa bilaabmay horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub ee kubadda cagta waxaana ka mid ah horyaalka Ingiriiska oo xiiso weyn loo qabay jimcihii waxa lagu furay ciyaartii dhex martay Manchester United iyo Leicester iyo natiijooyinka ciyaarihii ugu waaweyn waxay kala ahaayeen marka la eego Liverpool oo 4-0 ku tuntay kooxda West Ham Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Daniel Sturridge ayaa goolasha dhaliyay Southampton iyo Burnley ever ayay ku dhamaatay halka Arsenal iyo Manchester City-na Arsenal lagu garaacay 2-0 Manchester City waxa goolasha u dhaliyay Raheem Sterling iyo Bernardo Silva haddaba qaybta ciyaaraha ee caawa waxa igala qayb galaya barnaamijka Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad oo ah khabiirkan dhinaca ciyaaraha dhinaca magaalada Muqdisho waxa Skype-ka uga jira Maxamed Qadar Ibrahim oo ka faalooda ciyaaraha oo Muqdisho ku sugan waxaan ku hormarayaa Cabdirasaaq baan ku hormarayaa Cabdirasaaq hadaan ku bilowna ciyaartii Arsenal iyo Man City Arsenal awood baa loo sheegtay horta waxa weeyaan Arsenal weyn ognaho Wenger waa tii meesha laga saaray marka waxa la moodayay bedeladii teamkaas uu sameeyay iyo dadkii lahaa Arsenal inay wax soo kordhiyaan hase yeeshee dhibaatadu waxay ka dhacday markay isku soo beegmeen Manchester City oo aynu ognahay sidii ay ku heleen horyaalka sanadkiina soo dhaafay haddana ciidaba aan markaasi aan agmaraynin marka haddii aanu eegno mesela Arsenal laba gool baa laga badiyay iyo Eber gurigoodina waa lagu ciyaaray moogtay taas ay Emirates baa lagu ciyaaray taasoo markaa dhibaato gaar ah ay markaas u keentay aan soo geliyo asnaabal ciyaartaasi Maxamed Qadar oo ciyaaraha ka faalooda Skype-ka Muqdisho toos ugu jira Maxamed Qadar ciyaartaasi ciyaar la wada sugayahay aad baad u mahadsantahay Farxaan adigu iyo Siraad waan idin wada salaamay waxay ahayd runtii ciyaar aad u weyn Arsenal iyo Manchester City sida uu ka dhawaajiyay Siraado Manchester City waxaan wax laga qaban karin weeyaan sanadkii hore waan ogeyn in 100 dhibcood ay Premier League ku qaadeen waan record weyn anu waxaan qabaa Arsenal iyo Manchester City markay ciyaarayeen mar walba in awooddu ay qaadan karto kooxda Manchester City baan qabay maxaa yeelay waa ragga u ciyaaraya iyo ku fadhiyo isku mid yihiin hadda waan arkaynay shalay marka hore tababaru Aguero Sterling iyo Mahrez buu isticmaalay kadibna Sane iyo maxaa la yiraahdaa choices iyo wuxuu kale isticmaalay ciyaartooyga kale ee muhiimka ah ee kooxda keedka ku jira shal uu isticmaalayo marka City way u qalantay guusha shalay Maxamed Qadar waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Arsenal tababarahoodii muddada dheer soo laylinaya waa kii ka baxay meesha mid cusub baa yimid guul darruna ku bilaabay taasee loo arkayaa wallahi Farxaanow wax badan ay dadka Arsenal filayeen wax badan ay soo dhibtoodeen waxay islahaayeen waa markii ugu horeysay Soomaalidu waxay yiraahdaan markii oo meelay wax ka dhashaan alla cid yeeflay waxba u dhashay dawlad baa u curatay Arsenal waxay islahaayeen imaanshaha Unai Emery wax badan ayay noqon kartaa laakiin ma malaynayo inkastoo suuq yar ay sameeyeen laakiin hadda laba mid ahan waxay Liverpool sameysay waxay Manchester City ila iibsatay inkastoo inuu badnayn marka Arsenal Unai Emery imaanshihiisu wax weyn bay u ahayd wax badan bay taageerayaasha ka filayeen Maxamed Qadar ku soo laabanaya laakiin inkastoo horyaalku wali dhiman yahay Maxamed Qadar halkaada ii joog kugu soo laabanaya su'aashaas waxaan weydiinayaa Cabdirasaaq studio la joogo waxaan islahaa ninka waxa uu bedeli doonaa dhibaatada waxa ay ka dhalatay saaxiib markii Arsenal la eriyay managerkii Arsene Wenger waxa islahaayeen waxba soo kordhiya soo korodhkii ayaan darro waxay ku beegmeen inay Manchester City la ciyaaraan waa tiimka ugu culus ee maanta ka taagan dalkan Ingiriiska xataa haddii aad eegto tiimka kale ee Europe Man City cidina maanta waan gartay ku adag in meel baa la iska dhigay haye waqti badan ma hayna ciyaarihii kale xiisaha la aan gudubno Liverpool iyo West Ham haye sheeka halka ka dhacday waxa weeyaan West Ham iyo qudhoodu way dadaaleen waxay doonayeen inay keenaan dad cusub oo ay isbedel ay keenaan laakiin Liverpool oo aad moodo inaan ciidba ka hor imanaynin oo seen ogday Mohamed Salah iyo ragga ahaa Mane u joogaan 4 gool iyo Eber inay kaga badiyaan West Ham meesha ma oolin laakiin ciyaarta inta badan boqolkiiba 80 ama 70 waxa wadatay yani goolku kubadda waxa haystay baad leedahay West Ham maya waxa haystay Liverpool ba haystay cidla laga helay teamka West Ham Maxamed bal adiguna maxaad ka leedahay ciyaartii Liverpool iyo West Ham Farxaan waad u mahadsantahay Liverpool sanadkan waa sida ishaarta u badan tahay in markii ugu horeysay 9 ay qaadi karaan runtii neeyahow waxay la tahay sanadkan sida isku dhisan dartood
waxay yihiin kuwa favourite-ka ee ugu cadcad horyaalka inkastoo Manchester City aanu la dhayalsan karin haddana sanadkan xoogaa rajo fiican ay Liverpool haysataa oo weyn waliba maxamed saalax waa kii xoogaa rajo xumada dhinaca iyo ciyaarihii koobka adduunka ay ka soo qabsato dhaawaca gaaray sidii ku dhameeyay xilli ciyaareedkan cusubna waxaan ma la filayay marka leega dhaawaciisi maya dadka Soomaalidu waxay ku leeyihiin maya sanadka koowaad waa laga yaabaa ciyaarto inay sida dhan ugu qabatay ku leeyahay laakiin sanadka dambe sida ma noqon doono laakiin Saalax shal wuxuu muujiyay durba akoonkiisa inuu furtay walina u tartami karo goolasha wala ogtahay Soomaalida ayaan taan waa iska Maxamed Saalax xiisayihiin tan iyo sanadii hore wacdaro ciyaaruhu ka dhigay walina hadda Maxamed Saalax waa sii taagayahay wacdaradaha kan inuu sii wadi karaan maleynaya ninku Manchester United iyo Leicester maxaad ka leedahay adoo soo koobaya waqti ma hayna waxaan ka leeyahay Manchester inkastoo suuqa ay ku wareereen haddana xoogaa waa iska roorooyihiin inkastoo Pogba iyo gool ay heleen laakiin waxaan u maleynayaa Manchester sanadkan inay tartami karto laakiin balse ma ahan kuwa ugu cadcad marka laga reebo City iyo Liverpool waxay noqon karaan haddii wax walba ay dhacaan in xoogaa yar iyagu ay sanadkan meel fiican gaari karaan lagana yaabay culays ma saarno inayba geedkuba duubtaan baaba laga yaabaa waan gartay maxamed adoo soo koobaya maxaad is leedahay sanadkan yaa koobka qaadi doona saadaashaada farxaano inkastoo Premier League uu yahay meel yar yar ka waaweyn kuwa aadan kala fahmayn oo kooxo yar yar iyo kuwa weynba ay isku mid yihiin wasaham waa suuqa galaysa ciyaartoy boqolaal ka bixinaysa aan waxay la tahay sanad ciyaareedkan inkastoo ay adag tahay Manchester City in ay difaacan karto ayaa loo badinayaa oo yaani tan iyo 2007 ma dhicin koox ay difaacato laakiin waxa maleynayaa in Man City inay dadaali doonto oo ay ku qaadi karaan markale maxamed qadar aad baad u mahadsantahay adiga iyo Cabdirasaaq Xaaji Catoosh Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad inta ayaan kaga gudbaynaa ciyaarihii bal markana aynu eegno Xalimo Aadan oo ah danjira u ah hay'adda UNICEF waxay xil markaasi ay ku tilmaantay hay'addaas markii looga dhigay ambassador amaba danjira in uu noqoto guul weyn inay gaartay Finalist number 12 weligay maxaa maqli jiro una haddaa rabta intaa wax noqotid intaa xijaabka iska tuurtid waay no weli diintaada waa haysan kartaa weli dhaqankaada waa jeclaan kartaa dadkaada weli waa xasuusan kartaa adigoo meel gaaraysid Semi-finalist number 13 weliga qof oo xijaaban asturan weligood ma subin Soomaali way subin jirtay but weligooda like ma xijaabanin anna xijaabkayga ku soo galay iyo dhar asturan so maxaa rabaa intay gabdhaha arkaan intay waxay maskaxdooda galiyaan way subin karaan ayagoo isbedelin ayagoo isdhihin wadankayga ma laakiin inta ka qayb galo waay laakiin inta isbedelo waay ma dhaqankeena ma ka bixin because Soomaali badan baa fashion subisa iimaan fiiri like ayaan all these gabdho way subiyaan for example kaakumo wax badan wali u baahanahay iskuulayaasha horta ka bilowno right maxaa rabaa 3 sano ka bacdi 2 sano ka bacdi inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa waad ku mahadsantihiin daawadayaal habeen wanaagsan